Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ka codsaday dadka Itoobiyaanka ah inay wax u huraan sidii dalka looga badbaadin lahaa xoogga fallaagada ah xilli uusan helin wax jawaab shacab ah oo la xiriira baaqiisii hore ee ahaa hubka qaata. Mareykanka ayaa amray inay diblomaasiyiinta safaaraddiisa ee magaalada Addis Ababa inay isaga baxaan Itoobiya. 325 kiiloomitir ayay kooxda TPLF u jirtaa magaalada caasimadda ah. Dagaalkan oo socday muddo sanad ah ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya. Nafta waa la qaadayaa waqtigeeda, laakiin nafurayaashu waxay badbaadinayaan Itoobiya, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Abiy. Caqabadaha iyo imtixaanku waxay naga dhigeen kuwo sii xoogaysanaya. Waxaan leenahay saaxiibo badan marka la eego kuwa dhabarka nixijiyey, ayuu hadalkiisa ku daray Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya. Hadalka Abiy wuxuu yimid maalin kadib markii ay 9 kooxood oo cusub sheegeen inay ku biireen isbahaysiga dagaalka kula jira xukuumadda Abiy. Ujeedka dagaalka waxay ku sheegeen in la rabo in isbedel dhaco oo Abiy meesha laga saaro xoog ama wada xaajood midii ay noqotaba, balse dawladdu waxay meesha ka saartay saamaynta 9kaas koox ee ku biirtay dhinaca TPLF. Waxay ku tilmaantay inay yihiin kooxo aan lahayn wax saamayn ah. Annaga Itoobiyaan ahaan waa inaan u dhimanaa qarannimadeenna, midnimadeenna iyo aqoonsigeenna, waana sharaf. Itoobiyaannimadu ma jiri karto haddii aanay nafuri jirin, ayaa lagu yiri bogga dawladdu ku leedahay Twitterka. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Jeffrey Feltman, ayaa asbuucan ka degay magaalada Addis Ababa si uu xaaladda u damiyo, balse go'aanka ay Mareykanka ku gaareen inay la baxaan shaqaalaha safaaradooda ayaa ka dhigan inuusan Jeffrey Feltman wax horumar ah ka gaarin wadaxaajoodkii uu waday. Reer galbeedka ayaa la sheegay inay Abiy Ahmed u soo bandhigeen inuu badbaadiyo Itoobiya oo uu xafiiska ka tago ama uu bilaabo wadaxaajood lagu samaynayo dawlad wadaag ah oo ay qayb ka yihiin kooxaha dagaalka wada. TV-ga Al Jazeera waxa uu sheegay in ilo muhiim ay u xaqiijiyeen in Abiy Ahmed uu qorshahaasi ka cagajiiday. Hadalkiisii shalay waxaa ku jirta inuu haysto saaxiibo badan oo garab taagan marka loo eego kuwa dhabarka xijiyey. Jumladaas waxaa loo fahmay inuu ugu jawaabayo reer galbeedka ku cadaadinaya inuu iscasilo. Sacuudi Carabiya, Sweden iyo Norway ayaa sidoo kale la baxay diblomaasiyiintii ka joogay waddanka Itoobiya. Mareykanku waxay muujiyeen walaac ballaaran iyagoo sheegay inaan la saadaalin karin xilliga ay jabhadu soo galayso magaalada Addis Ababa, taasoo dhalin karta inay sahaydu u goodo si lama filaan ah, isgaarsiintu xiranto oo socdaalkana ay carqalad ku timaado. Waxaa socday qorshe ah in Abiy iscasilo oo uu dalka badbaadiyo, kadibna la keeno qof kale oo isla Oromo ah oo la isku raacsan yahay, kaas oo dalka ka gudbin kara xilliga adag iskuna hayn kara dhinacyada. Balse Abiy waxaa la sheegay inuu ku dooday inay tahay xalku inuu gudaha ka yimaado oo laga dhaafo faragelinta dibadda. Diidmada Abiy ee fursadaha xalka ayaa uga sii dari kara xaalka Itoobiya ay leeyihiin wariyaasha ka soo warramaya magaalada Addis Ababa. Magaalada Addis Ababa waxaa maanta ka socda banaanbax lagu taageerayo xukuumadda Abiy Ahmed. 10 kun oo ruux ayaa ka qayb galaya banaanbaxaas xilli ay TPLF kaabiga ku hayso magaalada caasimadda ah. Xaalka Itoobiya uma muuqda mid lagu xallin karo banaanbax abaabulan, laakiin waa iska dhaqanka hogaamiyaasha aaminsan inay dadku wali rabaan iyadoo xitaa dalkii gubanayo. Afhayeenka TPLF Gachagua Reda oo la weydiiyey waxa uga qorshaysan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, waxa uu sheegay in ujeedkoodu uusan ahayn dhul ballaarsi iyo inay mar kale xukunka xoog ku qabsadaan. Wuxuu sheegay inay arkaan inuu Abiy Ahmed khatar ku yahay shacabkooda, ayna rabaan inay khatartaasi soo afjaraan. Dan gaar ah kama lihin inaan galno magaalada Addis Ababa. Ujeedkeennu waa inaan dadkeenna ka badbaadino dhibaatada Abiy. Haddii taas lagu gaarayo inaan Addis Ababa qabsano, waan qabsan doonnaa, ayuu yiri afhayeenka TPLF Gachagua Reda. Kooxahan oo markii hore ka koobnaa TPLF iyo Ola ayaa hadda helay 9 koox cusub, waxaana ay ka dhigan tahay inuu dagaalku sii xoogaysan karo haddii uusan Abiy Ahmed la imaanin xal wada hadal ah oo lagu qaybsanayo awoodda dawladda. Maxay kula tahay adiga?